amniga waddanku waxa uu ku xidhan yahay tayeynta laamaha amniga hadday noqoto qalabka dhaqaalaha iyo xirfadda maxaa kaaga qorshaysan arrimahaasi haddaad ku guulaysato bismillah waxaan nooga qorshaysan aniga iyo xisbigayga iyo tiimkaygaba horta si loo helo amni waxaan kow ka dhigaynaa inay dadku cadaalad helaan haddaad aragto meel amnigu wuxuu yahay cadaaladdaa xun waxaanu xoojinaynaa hay-adaha cadaaladda oo wixii ay u baahan yihiin ma u huraynaa si qofku uu u aamino haddii laga gardarrada inuu cadaalad helayo amniga gudaha si uu u hagaago waxaanu ka jawaabi doonaa tabashooyinka gobolladu dhexdooda ay kala tabanayaan si qof waliba uu u aamino in qadiyadda somalilan loo midaysan yahay oo qof waliba xuquuqda iyo waajibaadka ku lahaa uu helayo laba waxaanu ku barbaarin doonaa oonu tacliinta soo maraynaynaa da'yarta ah waxaa la idhaha muwaadinnimada iyo wax wada lahaanshaha iyo isudulqaadka ilaa iskuullada halka laga soo bilaabo ee carruurta lagu soo barbaariyo markaanu dadka maskaxdooda u jeedinno inay amnigooda ilaashadaan oo is-aaminaan waxaanu taa garan wadaynaa tayeynta ciidamada amniga gudaha boliiska ciidamada wardoonka iyo dhammaan hay-adaha la xidhiidha wixii amni ku saabsan iyada oo loo fullayo tababar daryeelkooda iyaga iyo xaasiskooda wax fulan la siiyo gaadiidkooda iyo wixii ay qalab u baahdaan waxaanu tixgelin doonaa dadka ciidamada ka shaqeeya ee hal abuurka leh balaaniska iyo qorshayaasha ay keenaan waxaa loo xuli doonaa dad aqoon sare u leh oo waaya arag u leh sugidda amniga dalka gudihiisa waxaa naga ballana inuu qof kastoo somalilaadihi hantidiisa maalkiisa iyo sharafkiisa ammaan ku helo ayaa fikradayada iyo fishanka iyaguya waxaanu xoog saari doonaa in qof walba oo somalilaadihi uu helo daryeel naf iyo maala iyo cadaalad hadday ciidinto oo qaranka ku aamino eenu reer iyo caaqil ku aamino taasa annaga ayaa noo go-aana waxaan ku soo gabagabeynayaa amnigu waa lafdhabarta qaranka gudoomiye isla su-aasha lafteedii waxyaabaha u baahan yahay amnigu ee ka mid tahay tayeynta ciidamada ama laamaha ammaanka qalabkooda dhaqaalahooda maxaa kaaga qorshaysan idinka haddaad ku guulaysato waxaanu rumaysannahay amniga qaranku inuu ku hurdo ciidamada qaranka ee kala duwan laakiin waxaa ka muuqda ciidamada iyo qoysaskooda iyo noloshoodaba dayac fara badan qodobka koowaad waxaanu u kordhin doonaa mushahaarada sidaan horu sheegnay 250%. waxaanu xoojin doonaa xuduudaha somalilan iyadoo la tayeynayo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaanu tayeyn doonaa ciidanka booliiska somalilan si loo xoojiyo amniga gudaha waxaan la samayn doonaa community police ama booliis dadweyne waxaanu xoojin doonaa sirdoonka qaranka si loo xogo si loo ogaado mashaakilka iyo dhibaatooyinka lala dabacsan yahay somalilan waxaa noo qorshaysan si loo helo arrimahaas anoo mushaharooyinkana sheegay marka la daryeelo ciidanka hawsha haya ayay hawshuna wanaagsanaanaysaa waxaanu kaloo ciidanka u dhisi doonaa guryo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda waxaanu kaloo ciidamada u samayn doonaa xafiiska xaqsiinta iyada oo maanta aynu aragno marar badan iyagoo shaqo qaran ku jira haddii ay dhintaan iyo hadday gaboobaan midna inaanay wax xuquuqa lahayn aad iyo aad baan ugu dadaali doonaa in amniga qaranka la xasiliyo waxaa kaloo ugu dambeeya inaanu la wadaagno dalalka jaarka wixii aan laga maarmaynin amniga qaranka si loo sugo waxaanu u ballan qaadaynaa shacbiga inay ku seexan doonaan nabad guryahooda waxaanu ciidamada u ballan qaadaynaa in ilaahay hadduuna gaadhsiiyo ay daryeel maanta haystaan mid ka wanaagsan ay heli doonaan si ay dalkooda iyo dalkooda ugu adeegaan salaam calaykum anigu waxaan sameynaa insha allahu tacaala programkayga ah marka hore horta sharci baan sameynaya sharcigii dadku ilaaliya baan sameynaya insha allahu tacaala waxaan sameynaa kabacdi mekanismkii sharciga fulin lahaa oo hay-adihii amniga oo booliisku ka kow yahay intelligence notku ka mid tahay waxaan sameynaa qof kasta oo booliisa
وإنه مركه هو رئيسه هذا قف تعليم يقانا ومتعلم وإنه مركه كحكة أنا الدريال سينال مشهار كفرا يقولي كفرا وحي شقوق بني ديارات وقبتها استياد ساعة وحي كبدنا أنا الله السينال من دوننا يا الله waxaan doonaynaa in chip intelligence unit aan dadka soo basaasin si NST cadawga soo baada hatarta iyada sameeyaan doona insha Allah ta'ala waxaan dadka ku awoorina shacbiga waxaan ku awoorina inay noqdaan patriots nationalist noqdaan oo ay dad la saaxiibaan booliiska waxaan sameeynaa booliis la saaxiiba mujtamaca ay la shaqeynayaan oo gacan siiya mujtamaca ayaan jecelahay insha Allah ta'ala waxaan jecelahay discipline-ka inaanu adkaynaan jecelahay إن كل شيء وسمينا دورنا أن سمر كستوى refreshment course سينان ربنا هدي له إله وحن ربنا قفك بوليسكو إن أنا نقوم ضدك إنه حراء إنه ضدك عاويه كان ده لو ضدك بنيه عيال سكوك وضد أوبنيه أو إن لا صاحبه ومضى سمينا أمني وحوي بريور تجوه رسمان تأدونك وسكيورتي تاسانك كو إيوه إن وطن security جيسا أن نبت جليه أو عدة سوق جلسة أن أقاله أنا نكتجن goosar timira oo qof kasta soo galo oo immigration-ka aanu adkayna cidda soo galisa aanu ogaano wuxuu socdo yaa ka yimid